يعني hooyo badan maanta inay fahanto meesha aan ka gubanayo oo ilmaheeda waqti la qaadato aaday u fiicanta ilmahaaga waqti la qaado ilmahaaga la sheekayso ilmahaaga qaylo ma ahan oohin ma ahan waqti la qaado ilmahaaga la sheekayso saddexna ilmahaaga ha ku korin intaa nooshahay saddex ilmahaaga ha ku korin ilmahaaga ina maanta oo dhan tiraahdid cunug asaagaayo cunugaasaa kaa horeeya cunugaas kaa hormaray qur-aanka waa sida aaminsanahay cunugaas bahalkan waxbarashada asaa kaa horeeya leefalkaasuu keensaday ha ku korin waa sida aaminsanaa waa dhihi jira ha dhihin ka har cunugaaga ha ku korin ciqdi iyo dariskaaga inaad tiraahdo kuwaa saas weeye waa nibcahay ha ku korin dadka qaar aabbayaasha qaar laba reer ay leeyihiin reer hore weyn iyo reer yar waalidiinta qaar marka waxay ku beeraan ilmaha inay yiraahdaan ilmahaas waa ilmo xun ilmaha kale idin la dhashay waa xun yihiin ilmo fiican ma ahan kan weeye waxaan waa beer mir ah ku shubatay oo mirtaasi ay geed dhalayso geedkaas biri intifaac laga rabo ilmahaaga ha ku beerin ilmahaas way xun yihiin ama way kaa fiican yihiin oo aabba ayagu jecel yahay waxbaa ku beermaayo oo xumaan ah ha ku beerin aabbihiin waa idin necab yahay ilmahaas kale idinku jecel yahay ilmahaas kale waa xun yihiin ha ku beerin damac tiro badan oo wax walba aanay igu fiican yihiin ahna ilmahaaga ha ku korin because biri damacaas ayagana waxay ku jirayaan ilmahaaga damac tiro badan ha ku korin damacaas tirada badan leh biri waxay aaminayaan wax walba inay ayagu leeyihiin wax walba inay ayagu ku fiican yihiin wax walba inay xaggooda ayaga xigaan ma fiicnana damaca tirada badan leh in ilmaha lagu koriyo ciqdiga iyo qof kasta nacayb inaad qabtid maantoo dhan maantona dagaal ku jirtid qof hebelaan nibcahay ma jecli ilmo ayaga la dhashay inaad maantoo dhan u caysid wax ilmaha waxay ka qaadaan waxaa soo baxaya ilmo jirana gurigaa ka soo baxaya markay koraan oo bulshada galaan oo bulshada u tagaan ilmo abuur qaldan oo ayaga dhan uurka wax qaldan ugu jiraan baa bulshada dhex tegaya ilmahaaga ciqdi ha ku korin ilmahaagu ha ku koreen adoo naxariis samaynaya wanaag samaynaya dariskaaga u wanaag samaynaya ehelkaaga u wanaag samaynaya qof walba xiriir fiican iyo wanaag fiican samaynaya adoo ilmihii ayaga la dhashay aan wax ka sheegayno caynayn xumaynayn yani ilmahaagu markay ku koraan waxaa bulshada dhex tegaya ilmo uurka ka fiyow oo bulshada dhex tegaya macaan oo tacaamul fiican leh oo aan ciqdi qabin kuwa la dhashay ciqdi u qabin kuwa dariskooda ciqdi u qabin wax walba aanay ugu fiican yihiin aan dhahayn baa beri kaa soo baxaya marka ilmaha koriimadoodu waa muhiim ma ahan cunada kaliya ilmaha anaga ka Soomaali ahaan waxaan aaminsanahay in iskuul u dirno dugsi quraan u dirno cunana siino ka maskaxiyan inaan ka korino maskaxda aan wax fiyo ugu shubno laakiin hadaa adigu hooyo jiran tahay ama aabba jiran tahay maxaad ku shubto jiraad ku shubto ayagana bari bulshada jiray ula tagayaan hooyo aaminsan dhib iyo shido inay dariskeedu dhib ku yahay ehelkeedu dhib ku yahay ama aabihii dhib ku yahay wax walba hadaad xitaa wax kasto ama aabihii ama qabtid ilmahaaga ha ku shubin ilmahaaga waxa ku shubtaa wanaag bulshadana waxay la dhex tagayaan wanaag xaqiiqo waa wax la hubo hooyada waxay kugu soo korisaa bulshada la dhex tagaysaa aabaha iyo hooyada waxay kugu soo koriyeen baa bulshada la dhex tagaysaa hooyo ciqdi iyo xaasnimo iyo wax iska celi iyo saas yeel iyo anaga reer hebel iyo reer saas waana necab yihiin
cidaas waana necab tahay dadkaas waana necab yihiin waxaa la tagaysaa qof aaminsan wax walba waana necab yihiin iyo qof hebel iska riix iyo qof hebel la dagaal baa bulshada la dhex tagaysaa ilmahaagana berri intii kala dhaxal siinaysaa haddaad damac badan kugu jiro maanta oo dhan aad leedahay waxaan anay ugu fiican yihiinna waxaad dhalaysaa ama aad ilmahaaga ku beeraysaa damacii tirada badnaa berri damacii qabayaan ayagana wax walba anaga ugu fiican yihiin qabayaan marka waxaa fiican inaad bulshada markaad waxaan ilmahan aad korinaysa berri bulshada dhex tagayaan ilmo ka fiyow waxa sida adigu jeclaan lahayd inay yani ilmahaagu noqdaan ilmo bulshada wanaag la dhex taga nadiif la dhex taga si wanaagsan u tacaamula inaad ilmahaaga ka dhigtid oo bulshada dhex geysid ilmuhuna waa beerta haddaad digir meel ku ridid galey kama soo baxayso digirta unbaa ka soo baxaysaa geetalaal haddaad talaashidna oo aad tiraadid waxaan ka rabaa inay timir noqoto geetalaal qaraara ka soo baxaya timir ma kaaga soo baxayso mir timireedna mir geetalaal ma noqoto ilmahaagu waa mirtaas mirta waxaa ka dhigtid bay noqonaysaa haddaad timir ka dhigtidna macaan bay noqonaysaa timiray noqone haddaa geetalaal ka dhigtidna geetalaalay noqonayaan wax kaa soo baxaya wax qaraar marka qaraar unbaa kaa soo baxaya wanaag ma kaa soo baxaayo ilmahaaga way fiican tahay inaad wax wanaagsan ku tarbiyeysid waqti fiicanna aad la qaadatid kol aniga intaan arkay ama aan soo baraati gareeyay dagaalna waa soo arkay wanaag iyo la hadal iyo la sheekaysina waa soo arkay ka hooyo ahaan marka hooyo kasta oo maanta ilmo haysata oo ilmo yaryar haysatana jaanis maanta aniga aana gaarinin oo isoo dhaafay oo aan xanuun badan u dareemayo inaan jaaniska maanta inaan ka faa'iideysto ay fiicnaan lahayd waxaan dhihi lahaa ka faa'iideyso ilmahaaga waqti la qaado la sheekayso dagaalna xal ma noqdo wanaag wax lagu waayana dagaal laguma helo dhammaantiina waa in salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu